أنا state kii labaad marka laga yimaado Puntland state kii labaad oo dalka ka dhismo ay ahayd runtii hawshii dhisida state-kan waxaan hawl la wada qabtay runtii oo qayb aad iyo aad u weyn ay ku lahaayeen dadka reer Jubbaland ay ahayd hawl la wada rabay lagu wada faraxsanaa la wada raadinayay laakiin oo hawl markii la qabanayo mar walba culaysideed wixii iska leedahay laakiin runtii state-kan wuxuu daafur u noqday state-yadii kale ee ka dambeeyay saddexdii state ee ku xigtay dhismahoodii meel lagu hiigto lagu dhiirado dadku ay ku daysadaan way dhisantay annaguna aan dhisana la yiraa ayay ahayd waxay ahayday state-kan iyo dadkiisu ku ugu horeeyay dadka Soomaaliyeed u muujiyay Soomaalidana kaligeed inay wax qabsan karaan gudaha Soomaaliyana ay wax ku qabsan karaan marka runtii taariikh aad iyo aad xusuus fiican qurux badan leh ayay ahayd haddana meel fiican way maraysaa waxa uu dhiman ilaahay idinkiisu u dhameystirmaya dalkaani nidaamka federaalka ee ummaddu ay ku heshiisay waa nidaam aad iyo aad u wanaagsan in la horumariyo laga shaqeeyo u baahan yahay dabcan wax kasto bilow ah dhibaatadooda iyo culayskooda ay leeyihiin aad iyo aad ayaan u garan karaa maamulada maanta jira culeysyada haysto xaq dhaqaale leh xaq amni leh xaq maxaan kordhinac walba leh laakiin haddana wixii wiil maanta inta dhasho horaha ka dhaamiyo weligeed ma dhicina way soo tarmayaan maalintii kismaayo lagu dhawaaqay halkan maamulka Jubbaland iyo maanta farqiga u dhaxeeya daliil u ah in ay stateskan ay horumarayaan hor u soconayaan annaan wixii looga dan lahaa gaaran dalka Soomaaliya fursadda ugu weyn oo dawladnimadu ay ku baahi karto ummaduna ay hore inta u garato ay go'aansatay waxay ahayd nidaamkan federaalka marka annagu insha Allah nidaamka federaalka horeyna waa uga shaqeynay haddana waa ka shaqeynaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhan rabitaankoodana waaye wax shakhsi gaar ah iyo koox gaar iyo deegaan gaar ah ku gaar ah ma ahan